السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan mar labaad iyo mar kaleba waxaad ku soo dhawaataan janaalka Naasiruddin Kaabax inta kadib dad waxa uu daran ugu damiir xun mid ka damac weyn bal ila dhageyso qisadan waxa jiray nin boqor oo aad loo ixtiraami jiray boqorkii ayaa qabtay xilliyada kamida tartan lagu tartamayo fardaha waxa uu ballan qaaday abaalmarin aad u qaaliya oo uu siin doono qofkii ku guuleysta tartankii waxa ka soo qayb galay dad aad u tiro badan dadka ka soo qayb galay waxa kamid ahaa nin aad u damac badan oo doonaya in uu helo waxa dhulka saaran oo dhan markii la gaaray xilligii ballanta waxa bilowday tartankii oo ka koobnaa dhowr marxalad ama dhowr wareeg waxa dheeraaday tartankii ilaa uu gaaray dhowr saacadood waxaana la isla gaaray gabagabadii dadka gabagabada gaaray waxa kamid ahaa ninkii damac badnaa asaga ayaana noqday guuleystihii waxa la gaaray xilligii la guddoonsiin lahaa abaalmarinta boqorkii ayaa go'aansaday inuu ku abaalmariyo guri weyn oo ku yaala bartamaha magaalada balse ninkii ayaa dalbaday abaalmarin ka weyn inta wuxuuna ku yiri wareegii dheeraa iyo rafaadkii aan soo maray ma waxaan ka helay hantidaada oo dhan hal guri boqorkii ayaa ku qoslay oo gartay in uu yahay ninku nin damac badan waxa uu ku yiri hagaag waxaan ka dhigi doonaa abaalmarintaada dhulkan ayaad ku soconaysaa meel allaala meeshii aad ku noqdo ay ku ekaan doontaa abaalmarintaada ninkii ayaa farxay niyadana iska dhahay alla ilaahay dhul badan ayaad heli doontaa socodkii ayuuna bilaabay asagoo ku sii fikirayo maalka uu heli doono mustaqbalka waxa uu ku sii socday dhul saxara ah oo lama deegaan ah muddo dhan hal maalin asagoo isdhahaya wax badso waxa uu gaaray dhul saxara oo cidna joogin waxaana qabtay oon gaajo aad u daran waxaanu isdhahay soo laabo si aad cunno u hesho waxaanu ku soo laabtay raadkiisa balse nasiib xuma waxa uu dhintay baahi iyo oon daraadood cibrada sheekada musiibada ugu weyn oo insaan ku habsata waa damaca rasuulka sallallahu alayhi wasallam damaca tirada badan waa uu nooga digay qala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam law anna libni aadama waadiyan min dahab ahabba an yakuna lahu waadiyan walam yamla faahu illa turaab rasuulku wuxuu noo tilmaamayaa in aadam hadii la siiyo waadi dahaba waxa uu jeclaanayaa in looga dhigo laba waadi إن آدم أفكيسنا بوحما إلا التراب عرمي ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إنسان كوحا هلاقوا ودمع مدحدينا وحا هلاقوا ودمع دليردينا وحا هلاقوا ودمع ولا ليال دمع ترد بدن أسكيرينو انت أنكو كل مدونا قصة نوعانو كلا وحا إذكا قتغيا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته